waa nolol adag oo halkani ka jirta maadaama dadka halkan u soo deegaan raacay oo xoolo dhaqatada ah ay biyo la'aan baahsani ku haysato biyaha la'aantood nolosha ma sii jiri karta dad iyo dunyaba waana sababta waxa ugu hadal haynta badan ee halkani ka taagan ay biyo la'aanta tahay boqolkii qoys ee halkan u soo aroortaga maalinkiiba in ka badan 70% ayaa dib u noqday iyagoo aan wax biyo aan helin oo markii horeba ay halkan u soo raadiyeen bilaan aad baxsan baa ka dhacday waa laga waayay arka biyo aalidii waa kuwaas hadda ka maran u jeeda xalad biilaan goobayna kumanaan qoys oo isaga kala yimid gobolada Mudug iyo Galgaduud ayaa halkan bila ka hor ka degay roobka dayrta oo badnayn oo gobolada Soomaaliya inta badan baan ka diin sanadkani maadaama dalku abaaro xoogan wajahaya qayb ka mid ah dadka reer guraaga ee xoolo daaqsatada ah ayaa waxa soo wajahday biyo la'aan xoogan oo noloshooda saameyn ku yeelatay dadka iyo dunyadaba deegaanka Doctor ay ka jirtaa baahidan biyo la'aaneed oo bulshadan ay wajahayaan kana waceelkii dadka deegaanka ay cabi jireen oo gacan qodo ah balse haatan cilado badan oo soo wajahday ay suurtagal ahayn inaad biyo badan ka hesho halka ugu sokaydo oo biyo ay ku filan ay ka heli karaan waxay u jirtaa ugu yaraan 50 kilomitir taasi suurtagal ma ahan in aroor loo gala maadaama dadka iyo dunyadaba aysan gaarin waa reer guuraa habba meesha uu nurka gala marka aadayo maadaama sanadkan uu dalka qayb badan oo kamid ah abaar wajahayaan waa bayska koobaad nolosha bini'aadamka ee biyaha hadii la waayana halkaasi waxa ka dhalan karto inuu dad badan iyo dunyo kaleba ay ku nafwaayaan dadkan ayaa tabaya walwal badan oo ku saabsan dhanka biyo la'aanta ay ka haysato sida ay u heli lahaayeen inta aan ku sugnayn halkan waxa dad badan ay isaga tageen biyo la'aan awgeed maadaama xoolahi markii horeba iyo dadkii ay biyaha u soo dooneen aysan helin waa nolol adag oo halkani ka jirta maadaama dadka halkan u soo deegaan raacay oo xoolo dhaqatada ah ay biyo la'aan baahsani ku haysato biyaha la'aantood nolosha ma sii jiri karta dad iyo dunyaba waana sababta waxa ugu hadal haynta badan ee halkani ka taagan ay biyo la'aanta tahay deegaanka Doctor ee gobolka Galgaduud waxa uu kamid yahay deegaanada bulshada ku dhaqan gobolkan ee u soo deegaan raaceen kadib roob yar oo halkan ka daay saameyn dhanka nolosha ah ayaa ka dhalatay isku imaatanka dadka halkan degay waxaana ugu badan in biyo la'aan ay halkan ku soo wajahday maadaama aysan lahayn matooro ay biyaha dadka ka cabaan sida ay noo sheegeen bulshada deegaanka waxa jirta saameyn dhanka nolosha ay ka dhalatay biyo la'aantan qaar kamid ah dadka halkan u soo deegaan raacay oo dalsan la hadlay ayaa ugu horeyntii codsaday in lala soo gaaro gargaar ay biyaha ugu horeeyaan si nolosha dadka halkan degan ay wax isaga bedesho biyaha la'aantood nolosha ma sii jiri karta dad iyo dunyaba waxayna ka codsadeen madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya kuwa Galmudug iyo hay'adaha samafalka in codsigooda sida ugu dhaqsiyaha badan looga jawaabo maadaama halka ugu sokaydo oo biyo ay ka heli karaan ay tahay meel u jirto 50 kilomitir taasina aysan u saamixi karin daawunur farax waxaan ahay dadka meeshaan isugu yimid baan ka mid ahay meelo badan baa laga yimid sida ummaddu maqlaysay meeshaan Doctor baa la yiraahdaa aan joogno waa la isugu yimid oon baa ka dhacay oonkaas ka dhacayna anagu matoorka ceelkaan bam baa lagu cabi jiray bamkiina waa xumaaday dayactirkiisana ma hayno dad farsamo yaqaan uma hayno deeq ummadda kala gaarana wixii biyihii laga cabayo waa noqon waayeen caruurihii iyo dameerihii iyo dhaankii iyo xoolihii iyo ummaddii baa isugu timid 7 saac oo duurnimaan taaganahay oo hadda aan la tukan weli oon baana isu kaayo keenay dawladaha adduunka iyo qaaradan Soomaaliya dawladdan Soomaaliya intaba waa salaamaynaa waxaan ka codsanaynaa oonkaas iyo matoorka dayactir la'aantiisa iyo dhibaatada dalka ka jirta iyo ummadda barakaca isugu timid wixii ay ka qaban karaan oo awooda inay naga soo gaaraan oo yacni ay sidii xaaladdu ahaan jirtay meeshaan dhib badan baa ka jiray dhibkaas ay nala arkaan meel yar oo xoogaa galay ay ahayd waxa la isaga yimid qoraxsi waa laga yimid koonfur waa laga yimid bari waa laga yimid waqooyi waa laga yimid
ummad ilaahay meesha ku daray qofkiyoo ilaahay ku daro carfu galaa meeshii isugu yimid meeshii markay isugu yimaadeen wixii yarka ahaa oo meeshii la isugu waa la laystay markii la laystay waxaa ka dhaxday oon wax la yiraahdo baa ka dhacday ceelka bam ayaan ku cabi jirnay bamkii waa xumaaday sida annagu aan isleenahay dad yacni mataqaanaa farsamo yaqaana meeshaan diyaar kuma ahayn awalba dadka wax meesha ka qismay waxay ahaayeen dad arrin nooga yimid ay ahaayeen laakiin nolosha qiimaheedu waa biyihii waa weynay baraagihii biyo waa laga waayey oo wixii yarkaa waa ka dhammaadeen booyada ma lihin matooradu waxay noo jiraan intaasoo kiiloomitir oo meel laguma dhowaa booyada ma hayno qarash ma hayno baahi baa dhacday ceelkiina waa laga xumaaday adduunka iyo dadka maamulada hadday dawladda dhexe tahay iyo hadday dawladda galmudug tahay iyo hadday sanatarra tahay iyo hadday xildhibaano tahay iyo hadday hay-adaha kuwa dawliga iyo kuwa bahalkii kaleba yihiinba waxaan rabnaa maanta in waxna loo qabto bini'aadanimada in waxna lagu qabtaan rabno ilaahay weynaa ka sokow meeshaas baahi baa ka jirta ummaddii waa isugu timid waa lagu oomay xoolihii waa kuwa wareegaya dadka hadda noo yimidna waa muuqdaan way arkeen waxa aan nahay ilaahay fadliga ceelkii waa kan waa ujeedaan siduu yahay biyihii waa saray ma bamkaa ma soo laraa ma cudur kaloo hayaa waxba kama naqaano annaga waa lana farsamayaqaan ahayn waxaan rabnaa marka inaan cabasho gudbinno oo aan u gudbinno caalamka inaan u gudbinno khaasatan hay-adaha samafalka bixiya dawladda dhexe Soomaaliya maalka la yiraahdo maamulka galmudug dhammaan odayaasha iyo culimada iyo dadka haddii ilaahay kuu roon yahay qurba joogtaa dhammaantood waxaan leenahay dadkan iyo dunyadan ha laga soo gaaro ilaahay sameeyey aa kaafi kara ilaahay waxaan ka baryaynaa madar iyo raxmo ilaahay inuu siiyo dadkan uu u keeno oo waraabiyo asagaa waraabi kare laakiin haddii dan timaad ma aamusi kartid danta hadday timaado lama aamusi karo waxaan leenahay barkad biyo lagu shubo oo biyo ku jiraan male ceelkiina caynkan weeye meel hadda booyadu aan uga keenno iyo ceel loo dhow middan ma jiro iyo motoor waxaan codsanaynaa guddoomiye maanta dadka jooga meeshaan adaa mas-uul ka ah ilaahay mas-uul kaaga dhigay oo ku yiri u qaba guddoomiye u noqo waxaan kaa codsanaynaa inaadan caawa noo fadhiisan oodan maanta noo fadhiisan haddaan berri bi waxna soo gaarin dad badanaa maydaya ilmuhu baa u daraadeena iyo dumarku iyo dadka ceelka aan imaanin waana kaasoo hadda waa arkaysaa baalkii ah ceelka iyo dekadda iyo xoolihii oo dhan iyagoo oomana la bixiyey geelashii haddeer waxaa loo bixiyey صدق الله العلي العظيم ummadan oo maanta ilaahay meeshan uu ku kulmiyey oo ceelkan maaragtaa ku ooman ilaahay waxaan ka wada baryaynaa kulligeen waxaan isfaraynaa marta hore ilaahay taqwadiisa inaan maaragtaa ilaahay aan kulligeen aan wada barino oo aan ilaahay maaragtaa ku xirnaano oo aan kulligeen ilaahay aan maaragtaa aan gacno u wada taagano ilaahay ayaa oonka qaadi kara ilaahay ayaa maaragtaa wax walba keeni kara ilaahay inuu oonka naga qaado ilaahay madar inuu na siiyo ilaahay caafimaad inuu na siiyo kulligeen aan baryaha ilaahay aan u maaragtaa aan gacanta u wada taagano kulligeen waxaa tiraan ilaahu roobna sii ilaahu madarna sii ilaahu magfirana sii allahumma salli calaa muxamed waa nolol adag marka loo fiiriyo duruufaha ay bulshadan wajahayaan ee halkaani isugu yimid walow aan horeyna u soo gaarin hay-ada samafal iyo madax dowladeed intaba taas ayaana ah mid caqabadeeda leh haddii ay ku sii jiraan bulshadani biyo la-aanta halkani ku haysato fariinta ay direen ayaa ah in si degdega loola soo gaaro biyihii ay cabi lahayeen bulshadan iyagoo hay-adaha samafalka iyo dhammaanba madaxda galmudug iyo kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya ka codsaday in gargaarka ay biyaha ugu horeeyaan la soo gaarsiiyo bulshada deegaanka ku nool in ka badan boqolaal deegaano kale oo galmudug iyo mudug ka tirsan isaga yimid Mahad Nuuri Axmed raadiyaha iyo TV dalsan deegaanka Dhagtuur ee gobolka